wararka ka imanaya deegaanka Cari Cadeeyo oo ka tirsan gobolkaasi Sool ayaa waxaa halkaasi dagaal uu ku dhex maray laba beelood oo walaalo ah oo deegaankaasi wada dega. haddaba wariyahayaga gobolkaasi Sool Farxaan Caydiid ayaa khadka si toos ah waqtigan ugu jira. Farxaan, bal hadda dagaalka sidii uu dhacay iyo khasaaraha uu keenay iyo waqtiga uu dhacay bal hadda warbixin naga sii. waan dhowahay horta ugu horeyntii saaxiib saacadii casar kadib abaaro 4:00 iyo barkii galabnimo ayuu ka qarxay deegaanka Cari Cadeeye ee gobolka Sool. dagaalkaas oo u dhaxeeya laba beelood oo walaala oo wadaaga oo wada deegaankaasi in badanna wada deganaa halka dagaal badan soo noqnoqday waxaana jiray arrimaha nabadgelyo oo lagu waday nabad lagaga dhaliyo colaadaas halka ka socota oo ay wadeen guddi loo magacaabay oo xukuumaddu iyo barasaabka gobolka Sool iyo odayaasha dhaqanka gobolka Sool ay isxilqaameen oo ay sameeyeen guddidaas oo mandateeka ay siiyeen labada beeloodba welina iyadoo hawshii loo fadhiyo ayaa galabta nasiib xumo hawshani dhacday. haya markaa weli wax khasaara oo halkaa laga soo sheegayo kolley warar waxay sheegayaan dhimasho iyo dhaawac labaduba jiraan laakiinse ila lagu kalsoon yahay oo noo xaqiijin kara dhimashada iyo dhaawacaasi ma jiraan ilaa xilligan. wax dhimasho iyo dhaawac oo la soo gaarsiiyay isbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood ma jiro. ciidamada militariga iyo kuwa booliskuba halkaas way gaadheen xabadiina bacdan maghrib way joogsantay shaacina waa iskugu madawaaday. marka ciidamada militariga iyo kuwa Somalilandba way ku dhex jiraan hawsha hadeerna xabad kama socoto halkaasi. waxa Farxaan waxaad sheegtay dagaalku inuu 4:00 iyo barkii markay saacadu ahayd uu bilaabmay kana bilaabmay deegaanka Cari Cadeeye. Laascaanood ma la soo gaarsiiyey dhaawacii iyo khasaarihii dagaalka ka dhashay? isbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood wax la soo gaarsiiyey dhaawac iyo dhimasho ma jirto ilaa xilligan. dhaawac iyo dhimashadiina weli noloma xaqiijin oo warar baa sheegayeen dhaawac iyo dhimasho ay jirto laakiinse weli ma hubno ila lagu kalsoonaan karaan inoomay sheegin in dhaawac iyo dhimashada ay noo xaqiijiyeen ka kooban yihiin. weli lama soo gaarsin isbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood. ambalaasyadiina weli iyo laamihii caafimaadkuna weli gudaha umaysan gelin halkaasi. ciidamada amniga unbaa ayaa kala dhex galay oo kolley meesha colaad baa ka dhacday xabadna lama dhex geli karo marka dibadda ka taagan yihiin ciidamada amnigu goorta ay amarka ku siiyaan unbay geli karaan haddii la idmo. ma ku suurto gashay inaad la xidhiidho mas-uuliyiinta deegaankaasi Cari Cadeeye inaad dagaalkaasi wax ka weydiiso? wallahi waa isku darinay inaan la xidhiidhno mas-uuliyiinta deegaanka ugu horeeya hiir tuulaha degmadaasi laakiinse nasiib darro lambarkiisu u xidhnaa. deegaankan Cari Cadeeye sidaynu ka wada warqabno wuxuu ka tirsan yahay gobolkaasi Sool. hase ahaatee ciidamada qaranka Somaliland ayaa jiidaasi jooga. waqtigii dagaalku bilaabmay iyo waqtigii ay ciidamada qaranka Somaliland ay soo gaadheen goobtaasi intee u dhaxaysay? wallahi kuma xaqiijin kara hadeer laakiinse awal anigu waxaan ogaa iyadoo ciidamada Somaliland ee militarigu ku kala dhex jiraan labada beelood laakiinse ilaa 4 cisho ka hor waxa dhacday in gogashii nabadeed la dhigay Cari Cadeeye oo barasaabka gobolka Sool iyo taliyaha ciidanka aaga bari Cali Barre Xuseen ay soo fureen. iyadoo gogashii loo fadhiyo ayaa waxa dhacday shaqaaqo ka dhacday deegaanka Jidbaale iyo Lafaweyne oo bari waqooyi ka xiga magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool kana tirsan degmada Xudun. halkaas baana iyaduna halkaas wax ka dhaceen iyadoo halkaa lagu mashquulsan yahay haddana tan maanta dhacday laakiinse ciidamada waxay ku maqaalaa in ciidamadu ay markiiba gaadheen wax 40 daqiiqo yar markay inta xabadu socotay. Farxaan, maxaa labada beelood ee walaalaha deegaankaasi wada dega arrinta la isku dilayaa maxay tahay? wallahi dagaalkani in badan buu soo jiitamayay aanooyin qabiil weeye
in badan uu soo jiitamay ilaa 20 sano meelaha haddeer ku dhawaad laakiinse waa la heshiisiyey xitaa hablaha la kala qaatay oo 50 hablood baa la isdhaafsaday laakiinse waa kan haddana nasiib darro haddana galabta qarxay maalin hore oo sii horeysana uu qarxay laakiin gogoshiisii waa loo fadhiyey maantana nasiib darro baa dhacday barasaabkii gobolka Sool maadaama uu deegaankaasi hoos yimaado gobolkii Sool ma la xiriiray oo dagaalkaasi ma ka warhaya isagu gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire baaq nabadeed ka soo saaray halkaasi laakiinse wax noo suurto gashaan la xiriirno ma jiraan haba yaraateen waa mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha gobolkaasi Sool oo si toos ah inooga waramayay dagaal laba beelood oo walaalo ah ku dhaxmaray deegaanka Ari Cadeeye oo ka tirsan gobolkaasi Sool Farxaan Caydiid aad baad mahadsantahay magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waan u libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya Samtel shirkadda dadweynaha